magaalada Hargeysa waxaa tababar loogu soo xidhay macallimiin wax ka dhigta dugsiyo gaadhaya 17 dugsi oo lagu tababarayay luqadda Ingiriisiga. Tababarkan ayaa waxaa iska kaashaday Jaamacadda Aadna Aadan iyo Wasaaradda Waxbarashada Somaliland, taasi oo la doonayay in ardayda loo baro sida saxda ah ee luqadda loogu hadlo. Munaasabaddan xidhitaanka tababarka ayaa waxaa ugu horreynba ka hadlay maamulka Jaamacadda Aadna Aadan, macallimiinta tababarka la siinayay iyo macallimiintii tababarka bixinayay. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala inoo suurtageliyey tababarka inoo socday muddada 4 cisho ah inuu saaka inoo soo gabagaboobo. waxaan u mahad celinayaa runtii idinka oo macallimiintii tababarkan fahmay, qaatay, sida fiicanna u dhigtay. insha Allahuna aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo nidaamkiinii hore. shalay saa ahaydeen iyo berri saa noqotaan inay aad u kala fiicnaato ayaan idinka iyo Ilaahayba ka rajaynaynaa. barnaamijkan Jolly Phonics marka hore anigu ma aqoon, Aadna Aadan Ismaaciil baa soo aragtay mudday ka hadlaysay barnaamijkaas sidii waddankeena looga suurtagelin lahaa. mar hore aynu tijaabinay, imika markaana waxaan ku tijaabinay 6 iskuul, imika waxaad ahaydeen 17 iskuul. tirada macallimiintu markaa hore waxaan 12 macallin, maanta 51 macallin baa la soo xulay, inkastoo ay macallimiintu wada iman ay 35 macallin tababarka si sax ah u qaateen. mas'uuliyadda macallinnimadu waa mas'uuliyad weyn. qofka mas'uuliyadda qaadana ilmaha yar ee miskiinka ah ee weelka madhan sita ee maganta ku ah ee waxaad ku leeday dhagaysanaya inkaartiisa iyo ducadiisa way ku dhacaysaa. macallinka wanaagsani wuxuu noqdaa madax wanaagsan. seminaarkan inoo socdo waxaa mid aad wax inooga bedelayaa refreshment course ahaado iyo waxyaabo badan oo inaan inagu aqoon. ilmaha oo la taysiinayo intuu yar yahay, dhawaaqii sidii kelmadda loogu dhawaaqayay, sidii loo qorayay oo practice lagu siinayo, oo wixii ciyaar isagoo lagu tusayo farxad la gelinayo, motivation fara badan helaya. ilmuhu uu xiiseynayo wixii uu xiftiyi karo, xasuustiisana ay kor u qaadayso. waxyaabo fara badan muddo badan intii aynu haynaynay laga yaabo inuu ilaa fasalka afraad gaadho isagoo waxba akhriyin waxbana qorin. waxaynu maanta baranay inuu ilmuhu awoodi karo isagoo keeshii ku jira inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo. sababaha waxaan keenay waxa weeyaan seminaarkan qiimaha badan aynu helay oo laynagu tuso cilmi aad u badan oo laynaga soo saaray innaga. waxa weeyaan maskaxdaadu waa beer, wax wanaagsan haddaad ku qabato, aqoon iyo waayo-aragnimo cusub haddii lagu siiyo waxaa ka soo baxaya wax wanaagsan. awal maskaxdeenu way fiicneyd laakiin maynaan haysan khibraddan maanta aynu barannay. khibraddan waxaan rajaynayaa inay noqoto mid aynu ku guulaysano. As we stand from Zambia, they are adopting it into more schools. We are rolling to more sections, and there's more talk now about how it can benefit the nation, as it has proven to be a methodology that works faster and it's fun, and teachers find it as a tool that helps to read and write in English more faster than anything. والدين مهد علينا 3 عشو إنا وحو عن قادتين وحفي عن قادتين أقوم في عن قادتين لكن ويردون طبقدان ويدون الأرض وحي أبرتنا دي يكون عليسان لكن وحا لغاية با أرض انت اللوردقة A, B, C, D انت سوق لي هذه اللوردقة وحا لغاية با إنا نولي با المهاسي أنو إنجليش طبعا لكن قاب كان فضود هذا كنت بغدان المهم مركب ولا قبصنايا دور بلود جدود بوحل بوكيليا وقاب كي ساوند كفونيشن كي فونيشن فونولوجي فونوتكسكي وهبك عضينتا حروفها يرجي لوكالا تجيبينيو سيدا دراديد ومهدسنتين Jolly Phonics وينو مهد علينا إن معلم كان دهينا دانيال سولو وينو مهد علينا ولايا ضبقة أردينا كعليا عروتنا كعليا والغياب السلام شايع مصطفى monitoring and evaluation إنه رعدون ME monitoring and evaluation
waa laydin kormeeri doonaa waana laydin qiimayn doonaa markaa midda kale waa la isugu barbar dhigaya intiinii wax baratay iyo macallimiinta kale aan waxba baran ba hadana comparison waa la isbarbar dhigayaa sida daraadeed hawsha waa hawl qiimo badan adna aadan baana runtii inoo fududaysay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro